kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan geyga Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanaysa waxaan ku soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga soo sheegayo in xilligan ay ka taagan yihiin deegaanka Awdinle ciidanka Itoobiya oo fariin culus u gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadaba maxay tahay fariinta ay ciidanka Itoobiya ay gudbiyeen isla markaana ay soo saareen go'aano adag oo ay kaga soo horjeedaan in Axmed Madoobe loo doorto madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xogaas oo dhameystiranaya halkan kugu soo gudbin doona Itoobiya oo ciidan hub iyo gaadiid ku wareejisay ciidanka taawacsan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee ku sugan Awdinle muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan xogaas oo dhameystiran hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe noo dhig gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe noo tahayna muuqaalkana share garee like noo saar si uu gaar asxaab badan oo ku maasanta daawashadaada aynu ku bilaabno deegaanka Awdinle oo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee taawacsan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa halkaasi durbaba waxay ka bilaabeen dhaqdhaqaaq xoogan oo ay kaga soo horjeedaan amaba ay kaga doonayaan in ay iskaga difaacaan weerar kasta oo kaga imaanaya dhanka iyo Baydhabo iyagoona xilligan soo baxsaday hubkoodii iyo sidoo kale gaadiidkoodii dagaal waxaana horay ay fariimo kala duwan hawada ay u soo marinayeen inay weerari doonaan madaxtooyada Baydhabo halkaasi uu ka soo baxay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana la soo tabinayaa in xilligan ay bilaabeen abaabul dagaal oo ka dhan ah Baydhabo inkastoo wali si shaacsan aan loo faahfaahinin ujeedka ka dambeeyay in ciidanka taawacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay bilaabaan dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo sidoo kale abaabulka dagaal dhinaca kalena ciidanka Itoobiya ee ku sugan Awdinle iyo sidoo kale qaybo kamid ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa xilligan waxa la soo tabinayaa in ay hub iyo gaadiid ay u geeyeen ciidanka taawacsan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyadoona lagu sheegay in hubkaasi loogu talagalay inay iskaga difaacaan weerar kasta oo kaga imaada mucaaradka iyadoona dhawaan ay ahayd markii mucaaradka qaar kamid ah ay gaareen deegaanka Awdinle inkastoo kulamadaasi aysan ka soo bixin wax natiijo ah oo ay ku soo gacan saareen mucaaradkii la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidanka taawacsanaa Cabdicasiis Laftagareen ayaa wali go'aankoodii waxa uu yahay inay taageero buuxda ay u yihiin Cabdicasiis Laftagareen isla markaana aysan difaaci doonin madaxweyne kasta ee loo magacaabo maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ciidanka Itoobiya ayaa dhanka kale fariin culus waxay u gudbiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona sheegay in gabi ahaanba aysan ogolaan doonin in gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe loo magacaabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyagoona diiday in gabi ahaanba aysan la shaqeyn doonin Aadan Madoobe maadaama meelaha ugu muhiimsan ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay gacanta ku hayaan ciidanka Itoobiya isla markaana si aad ah ula shaqeynayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyadoona ay xusid mudan tahay intan markii uu bilowday dagaalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kula jirtay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay ciidanka Itoobiya marnaba aysan ka barbar dagaalamin dagaalkaasi oo ay sheegeen in ay bari ay ka yihiin dagaalka ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayagoo ilaashanaya amaba ilaalinaya nabadgelyadii halkaasi loo geeyay balse xilligan waxay ku dhawaaqeen in gabi ahaanba aysan dooneynin inay la shaqeeyaan Aadan Madoobe hadii uu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ma aysan saadaalinin amaba ma aysan xusin shakhsiga ay sida gaarka ay u doorbidayaan inuu madaxweyne uu ka noqdo maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qaybo kamid ah meelaha ugu muhiimsan ee ay kamid yahay garoonka Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo waxa xilligan gacanta ku haya ciidanka Itoobiya oo gabi ahaanba diiday tan iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray magaalada Baydhabo in ay
ku wareejiyaan ciidankii mucaaradka ama kuwii ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay kaliya in ay wareejin doonaan markii madaxweyne loo magacaabo ama ba lagu doorto magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo arintaas ay taagan tahay markana waxa ay soo gudbiyeen dalab cusub oo ku aadan in gabi ahaanba aysan la shaqeyn doonin Aadan Madoobe lama oga ilaa hadda in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu tixgelin doono in hadalka ka soo baxay ciidanka Itoobiya ee ku sugan deegaanada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo magaalada Baydhabo xilligan ay ka soconayaan kulamo gooni ah oo ay yeelanayaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku mucaaradka ee ku sugan halkaasi sidoo kale maanta magaalada Baydhabo waxaa lagu dheeriyay wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan iyadoo munaasabada ee dhaarinta uu goobjoog ka ahaa hogaamiyaha ku-meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji isagoona halkaasi ka jeediyay hadallo kooban waxaan isla daawanaynaa sida ay u dhacday dhaarinta iyo sidoo kale hadalkii uu jeediyay hogaamiyaha ku-meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya inkastoo hogaamiyahan qaar badan ee dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si aad ugu soo horjeedaan isla markaana ay doonayaan qof u dhashay deegaankaasi in xilkan loo magacaabo kitaabka gacanta midigta saar waxaan ay gadaba بسم الله الرحمن الرحيم وحائق والله إيقو بالله إيقو تالله وأن مقع إلهي إيقو دارنا يا إن أن أقوتو حلقيقة سداعدة أو أي كجرتو دانت الدالك يدينتو با دوراينا دستورك يشروع ذاك له ودكسن دولة كونفور قلبات سوماليا وبالله التوفيق طبعا كتاب كاس واحد مرتين هذا أديك الشعب الصومالي ساعد هذا اللي حساسية الوجرو يقول هان ولا وزير هذا كلام شغالة دولة هير كذي كلا دوامبا نيوال مسؤولية قارة أيوه يا مال قارة أيوه مسؤول كي هاي إن شعبك سداع هذا اللي هو أديكو amnigu kuma sii jiro oo waa hawl xasaasi ah waliba xilligan adag oo adeertaan shaqo yar dhacday iyo doorashooyinka nagu soo aadan iyo cadawgu waxa uu maleegayo oo runtii aan warbixinada ku hayno waxa waaye waxa soo dhanado ka hashanaysid hay'adaha amniga ee joogay inuu ilaahay inaad si la yaqaan uga shaqeeyso habeen maalin u soo jeedid hadii ilaahay yiraahdo هذا دمان waxaan farnay inay kula shaqeeyaan biidmilaahi si dhow inay kula shaqeyn doonaan guud ahaan golaha wasiirada iyo shacabka Koonfur Galbeedba inay nabadda ka wada shaqeeyaan oo askari meel taag wax muwaadiniin kare qof kasto eriyada uu socdo iyo meel walba uu fadhiyo iyo inuu indhaha ku hayo cadawga wuxuu maleegaya inay wala socona inay maleegayaan qaraxay iyo wax lamida xasaase waxaan rabnaa shacabku isku duuban inay ka wada hortagaan magaaladan subaxii dad badan soo gala oo alaaba sita dadka soo galaya xaafadaha lugaha ku soo galaya baabuurta waa checkpoint yaala jiro oo la baaro laakiin dadka lugaynaya ee ka yimaada magaalada daafeeda caanaha sita cadawgu wuxuu isku ekaysiin karaa dadkaas masaakiinta ah ilgaar in loo yeesho hay'ada amniga si fiican loo dardaarantay hadii la yiraahdo shacabka guud ahaanna inay iyagu waardiyaha ka galaan oo ay ciidamada amniga la shaqeeyaan haddii aad daabatay muuqaalka dhameysatay aragtida inoogu reeb qaybta faalada waxa kaaga soo baxay haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhagan baleelka nafro si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar si uu gaaro asxaab badan waad ku maasantahay daawashadaada